Ganacsiga degmada Runugod taga iyo ganacsiga degmada Dhuusamareeb taga barbar dhig. Deegaankan aad u jeedin wuxuu maalin kasta geeyaa degmada Guriceel, Cabudwaaq, Gaalkacyo, Dhuusamareeb, Mooska waana degmooyin aad uga fog caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Jamhuuriyadda Soomaaliya. Haddii la fiirsho degmada Runugod ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay u jirtaa kaliya 250 kiiloomitir caasimadda Soomaaliya. Dadka joogana ma yaqaaniin wax qudaar ah, moos ma tago, qudaari kale ma tagto. Waxa dhib ah oo ceeb ah ganacsatada degmada Runugod joogta inay garanba waxay degmada ku kala kacdo ganacsigooda ku soo koobaan bariis iyo burdhac iyo bariis iyo baasto loomana baahno. Beedka Runugod Media xogo badan oo ka helay ganacsiga faafaya ee Dhuusamareeb iyo dadka jooga si uga ilbaxsan yihiin dadka degan degmada Runugod ayaan rabnaa in halkan uga sheegno aan soo bandhigno una sheegno ganacsatada ku xiran ganacsiga degmada Runugod inay ganacsiga ka bedelaan baasta iyo bariis iyo waxaas ay geentooda ayna u bedelaan qudaar si degmada ay u noqoto degmo qudaar laga cuno dadka jooga fitamiin fiican u yeeshaan maadaama ay gawaaridan ay intaasoo tan ay qaadaan baasta iyo bariis ay qaadaan laakiin wax qudaar ay qaadaan gawaarida u jeedin tiicayaasha ah waxay maalin kasta degmada Runugod maraan ay moos qudaar iyo wax walba sida handara kuwa degmada jooga ma ahan marnaba ma geeyaan qudaartooda aadayna uga gaabiyeen wayna qayaaneen dadka deegaanka. Waxaan ka codsanayaa dhammaan asxaabta ina share like siina faafisaan beedkan maadaama uu beedkan mar walba ka faalooda degmada Runugod oo dhammaan Soomaaliya ka faalooda oo na jecel yahay dhammaan horumarka Soomaaliya gaar ahaan degmada Runugod. Mar walba waxaan ka codsanaynaa asxaabta inay sharafta leh inay faafiyaan ganacsatada degmada Runugod. Waxaan ka codsanaynaa inay bedelaan gawaari caadi ah qudaarta qaada oo ka madax bannaan kuwa shixnada qaada ay degmada gaarsiiyaan. Insha Allah waxaan rajeynayaa in mar dhow degmada Runugod